shirkii golaha wasiirada Soomaaliya ee toddobaadlaha ahaa ayaa goordhow ku soo gabagaboobay magaalada Muqdisho iyadoo wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya halkaasi hadal uu ka jeediyay oo golaha wasiirada ka dalbaday in la taageero go'aankiisii uu ku joojiyay qaar ka mid ah applicationada TikTok, Telegram iyo sidoo kale OneXBet. wasiirka wasaaraddaas ayaa hadal uu ka dhex jeediyay shirka golaha wasiirada waxa uu sheegay inuu la kulmayo culays badan isla markaana uu rabo in go'aankiisa la dhaqan geliyo oo ay saacado ka dhiman tahay laakiin waxaan xog ku helnay in xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ay wasiirka u direen inuu dib u eegis ku sameeyo go'aankii uu cugsaday joojinta applicationadaas oo isticmaalaan dad badan oo Soomaaliyeed iyo inuu caddeeyo sababaha keenay in la joojiyo sidoo kale waxaa la faray inuu wada tashi la soo yeesho qaar ka mid ah bulshada rayidka sida culimada shirkadaha internet qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho iyo dhammaan dadka u adeegsada in ay siyaabo positive ama wanaag ah u isticmaalaan applicationadaas. xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya gaar ahaan guddiga warfaafinta wacyigelinta dhaqanka iyo sidoo kale isgaarsiinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sidaas oo kale waxay wasiirku ka dalbadeen inuu hor yimaado fadhiga golahaas oo dhici doona 27 bisha Agost oo ku beegan axadda soo socota. golaha wasiirada Soomaaliya waxay sheegeen in markii horeba wasiirku uusan la tashi ku sameeynin xubnaha kale ee wasiirada shirkan uusan horkeenin haddana aysan taageeri karin iyagoo aan ogaanin sababaha iyo in loo maray wadooyin sax ah si gaar ah waxaa la faray in uu tixgelin siiyo dadka Soomaaliyeed ee isticmaala barahaas iyo kuwa ku shaqeysta sida shirkadaha internetka bixiya culimada Soomaaliyeed iyo dhalinyarada baraha bulshada isticmaala gaar ahaan kuwa aalada TikTok kadib ayaa la faray inuu horkeeno golaha wasiirada Soomaaliya laakiin waxaan xog ku helaynaa in wasiirka wasaaraddaas oo waqti badan gelinayo in go'aankiisa caawa la fuliyo isagoo la sheegay inuu la xiriiray mas'uuliyiin kala duwan oo hay'adaha dawladda ka tirsan. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre iyo Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ilaa hadda kama aysan hadlin go'aankan mana jirto wax xafiisyada ka soo baxay oo arrintan qusaysa laakiin warqadda lagu joojiyay ma ahayn mid ogeysiin la siiyay ama lagu cadeeyay inuu ahaa go'aan qaran oo ay madaxda qaranka wax ka og yihiin baarlamaanka iyo golaha wasiirada ayaa sidoo kale hore loo marsiinin. Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa hore u dhaliilay go'aankan waxa uuna ku sheegay in aysan suurtagal ahayn in wax dan guud ah ama masiir ummad Soomaaliyeed taabanaya wasiir kaligiis go'aan ka gaara aysan sax ahayn. maamul goboleedyada Puntland iyo Somaliland ayaa sidoo kale diiday arrintan waxayna ka soo horjeesteen go'aanka wasiirka iyagoo shirkadaha isgaarsiinta ugu baaqay ama ku amray inaysan qaadan karin go'aan wada tashi aan soo marin oo aan si wada jira loo soo saarin. wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Jaamac Xasan Khaliif waxa uu raadinayaa in caawa 5 saac oo habeenimo kadib go'aankiisa oo dhaqan galo saacadii hore ee maanta aaladda OneXBet ayaa daqiiqado ama saacado shaqayn weysa laakiin waxaa la sheegay in ay ahayd cillad ama dhibaato ka jirtay applicationkaas inkastoo hadda ay dib u soo laabatay oo si caadi ah u shaqaynayo. qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee isticmaala aaladda TikTok ayaa saacadihii iyo maalmihii la soo dhaafay waxa ay wadeen dadaalo xoog leh oo ay ku diidan yihiin arrintaas. waxaa jira kulamo ay dhalinyarada aaladda TikTok isticmaala ay ku qabteen magaalada Muqdisho qaarkoodna ay la kulmeen xubno ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. TikTok iyo Telegram labaduba waxay leeyihiin xumaan iyo faa'iido waxaase u baahan in la isbarbar dhigo keebaa badan faa'iidadiisa iyo xumaantiisa. haddiise dadka Soomaaliyeed ay ka maarmin isticmaalka applicationadaas sidee ayay suurtagal ku tahay in la joojiyo fasahaadka iyo dhibaatada halkaas ka socota si loo badbaadiyo dadka kale ee Soomaaliyeed ee u isticmaalo wanaag. dad ayaa wax ka barta kuwa ayaa ku soo bandhiga adeegyada ganacsi oo ku xayeysiiya qaar kaleentoodna waxay u noqotay fursad ay hal abuurada ku soo bandhigi karaan dhalinyaro badan lacag ay ka sameeyaan oo waxa ay nolol u noqotay qoysas badan laakiin intaasba waxaa barbar socda xumaan badan oo ay sameeyaan dhalinyaro kale oo isla qayb ka mid ah isticmaala applicationada ay dawladdu diidan